وديارتي inay qayb ka qaataan waa arrin bogaadin leh adinkuna aad leedihiin runtii mahadcelinteeda maadaama aad shaqada hoose iyo soo awaabulkii dadka iyo in arrintan qabsoonto aad maaragtay mas'uulka ahaydeen intaas kadib mudanayaal halkan waxaan u joognay wasiirku wuxuu ka shirqamiyay qorshihii hadda qorshaha dhamaanaya iyo doorkii Jubbaland sidoo ahaa sababta hadda halkan aan u joogno waxa weeye dadka in la tashado heerkooda kala gedisan gobolada waa la tagi doonaa wixii ka imaada dawlad goboleedyada iyo deegaanada ay ku yaalaan in lagu daro qorshaha qaranka hadhow culaysyo way imaanayaan culaysyo fulneed baa imaanaysa miisaaniyad xaggeed ka imaanaya jirta abaabul xaggiis ka imaanaya jira laakiin wax walba markeedii leeyihiin hadda waxaan rabnaa maxaa ahmiyad u jirta qorshahan qaranka waxaan rabnaa inuu gedisnaado kii hore inuu yaalay in dawlad goboleedyadana baahidooda iyo ahmiyadooda la soo qaado waxa shaqada wadana ay noqdaan institutionska ama hay'adaha dawliga oo leeyihiin dawlad goboleedyada dawladda federaalka wasaaradda qorsheynta qarankuna ay yeelato hagida iyo jahaynta iyo maareynta barnaamijka geedi socodka halkan labadii cashoon joognay waan u gali doonaa laakiin si guud waxaan rabaa inaan u taabto qorshahan qaranka uu soo bilowday wuxuu ka soo bilowday alifid wadadii aan mari lahayn horta jidkii waa inaan helaa marka hore jidkii waa la isla soo diyaariyay wasaaradaha qorsheynta dawlad goboleedka gacan bay ku lahaayeen wuxuu soo maray heerar kala gedisan wuxuu soo maray jadwalkii la isla fariisiyo wuxuu soo maray in dawlad goboleedka la kala aado Hirshabeelle waa laga soo dhamaaday South West-na maanta la furay oo laga bilaabayo wada tashiyadii halkaan khamiistii hadda nimid oo wasaaradda qorsheynta Jubbaland ay runtii ugu soo dhaweysay diiran shaqadan waxa u socotay si xawli ah qorshahan wuxuu yeelan doonaa 5 tiir ama dhidib 5 tiir waxa weeye tiir la xiriira nabadgelyada iyo mid la xiriira arrimaha siyaasadda iyo mid la xiriira horumarinta dhaqaalaha iyo mid la xiriira haddii ilaahay kuu samagol yahay arrimaha bulshada iyo maareynta bay'ada waxay arrimaha bay'ada waxay la xiriireen la maareeyo waxaan hadda rabnaa oo wareegan koowaad oo wada tashada ay ku saabsan yihiin marxaladda iyo heerka saboolnimo oo jirta horta in la fiirsho laba dhinac baa laga fiirinayaa marka dhinaca waxa weeye daatada iyo macluumaadka hadda yaala oo dukumentiyada kala gedisan ku qoran ama ha ahaadeen NDP-gii horeeto ama ha ahaado strategic planiska iyo barnaamijyada horumarineed dawlad goboleed u yaala iyo macluumaadka la heli karo waxaas inta la soo niqaasho in la keeno la yiraahdo maxaan haynaa xaalka saboolnimo halkee taagan waxaa la rabaa in intaas lagu daro wada tashiyadan aragtida dadka ka soo baxda in lagu qabo oo halkaas wixii ka soo baxa saboolnimo hadii jirto waxa keenay iyo sidii loo gudbi lahaa hadda chapterkaas la tacaalay chapterada kaleeto oo xiga oo qorshaha qaranka wada tashiyada way soo laabanayaan waxa jiri doona wareeg labaad wareeg saddexaad iyo wareeg afraad intaas marka taxliilin fara badan bay gali doonaan wixii mashaariic horumarineed hadii la yiraahdo midkan oo kaleeto waxa looga bixi karaa saboolnimada ka jirta dalka laakiin gaar ahaan Jubbaland wax soo saarka in la horumariyo la kiciyo wax soo saarka dhinacyadiisa kala gedisan baa la fiirin haday beer ahaan lahayd haday biyo ahaan lahayd haday ahaan lahayd korontadii haday ahaan lahayd khayraadka kaleeto oo beerihii iyo xoolihii iyo kalluumaysigii iyo dadkii ilaa waxaas oo dhan waxa ka dambeeya waa quwad iyo maskax bini aadam weey Soomaa man power-kii iyo dadkii in wax la baro arrimahaas marka waxay noqonaysaa hadhow in si guday dheer loo galo gunaanadka marka aan rabo warkayga inaan ku soo gabagabay waxa weeye أنا مرة لو ما دعينا هي وزارة القرشين جبلان شقالة كنت سيدة الفرعون وشقينا مع ما عندهم بيتو أدينك كبار لما نهان دور كأدليدين هوي وأرهنتنا تقول ليدين هو يجا دولة جولات كبار وأيمانك في أفراد بري أو الحراية وجوعان إلا هرمريو برنامج كي قرشها هرمرينتا قرنك National Development Plan oo akii sagaalaad ee ay Soomaaliya samaysato sidii Soomaaliya loo yiri qorshihii sideedaad waa ogeydeen hadii adinka laftiina aad nagu jafaaliseen oo intaan keenay celinay oo tirada dadka iyo ay wax ka waxaysmeen dala ku celceliyay ka ilaahay baa naga dhameeyay ugu dhamaaday
qorshe cusub oo dowlad goboleed kasta ka socda oo anagu nasiib u yeelanay in xogayihii joogtada ahaa oo soo raaco khubarada annaga noo imaanayso ayaan halkan ku wadnaa. wuxuu leeyahay tiirar badan. qorshihii la samayn lahaa waxaa la rabaa in laga sameeyo afkayaga innaga inala ka dhagaysto bacdamaa mudanayaal aad tihiin wakiiladii bulshada. farxad gaar ah waxaa iisii ah hadhow markii aan keenno oo golaha wasiirada inta ay naga aqbalaan aan idinka idin keenno inaad input ku lahaan doontaan. haddaba waqti ha la geliyo, waa waqti saacad ama laba ah waxa uu socdo. waxaan idinka codsanayaa inaad waqti gelisaan oo gurub baa loo kala bixi doonaa, waraysiyo badan baa la samayn doonaa. qof waliba uu xildhibaan meel buu ka yimid, sector gooni uu xog ka hayaa, guddi gooni ayuu madax ama xubin ka yahay. furitaanka kadib hawshii dhabta ahayd baa loo dhici doonaa. 5 sano qorshe ah oo qaranku leeyahay, dowlad goboleedana laga ururiyay dowlad goboleed kasta oo mideena lagu matalayo ayaa meesha lagu horumarinaya. haddii aan awal haysanay oo aanu awal ka cabanaynay xog la iska ururiyay oo internetka iyo sarbeeye yaryar laga qaatay, haddaan ka cabanaynay iminka waxaa yaalla xog ku hortaala, foomam ay wadaan oo inoo ballan qaadeen siday yihiin inay qorshaha qaranka u galayaan. ambassador cabdirashiid cabdulqaadir dhimidda faqrinimada barnaamij la yiraahdo oo si caalami ah loo darsay oo data caalami ah ku salaysan ayuu maxaan ku raahdaa iyo Dr. Abubakar Sanay iyo ayay wadaan Saciid iyo marka waana isku dhex samaysan in component kamid ah way iyaga sharxi doona. inaga waxaan nala siman mudanayaal markaan mudan leeyahay xildhibaanada dhan baan loo jeedaa, ragga kaliya oo lama jeedo. mudanayaal waxaan doonaynaa in aad waqti ay astaahisho gelisaan barnaamijkaas qorshaha qaranka oo hawlwadeennada wado sida ay rabaan aad ogala shaqaysaan, laakiin macluumaadka idinku xiran yahay. beeraha, xoolaha, fakhriga, waxyaabaha fakhriga wada waxoo dhan bay ka hadlayaan. participationka iyo ka qaybgalku wuu fiicnaa. shaqaalaha wasaaraddeeda way amaaneen dadka reer Jubbaland inay si fiican uga qayb galeen. xogo kale oo helayna gobolka ugu interest badan oo dadku ugu xiiseyn badan yihiin inay balaankan wax ku daraan weeye xogta aan helay. aad baan ugu amaanayaa dadka dowlad goboleedka madaxda iyo shacabkaba ka ah. aniguna waxaan idhaahdaa haddii annaga reero wareed ma nihin, beeraley iyo xoololey baan nahay, reero wareed ma nihin, waxaan ka shaqaynaynaa waa wax concrete oo la taaban karo. mar kale mudane gudoomiye sharaf bay noo tahay in adiga iyo colkaagaba aad ka soo qayb gashaan arrintan sharafta leh oo muhiimka u ah dowlad goboleed